wafdi ballaaran oo hogaaminaya Garajaamac Garaad Ismaaciil Ducaale ayaa saaka ka ambabaxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana socdaal ku weerarinayay garaadka odayaasha waxgaradka iyo caaqilada beesha Jaamac Siyaad waxayna la hadleen warbaahinta xilliga ay gudaha magaalada ka ambabaxayeen iyagoo labada bilood ugu baaqay inay nabad qaataan isla markaana u hoggaansanaan cid kasta dhexdhexaadin wada garaadka iyo cuqaasha ayaa maamulada dariska ku duray colaadda soo noqonaysa waxaana ugu baaqay inay garab istaagaan ismada deegaanka sidii loo soo afjari lahaa colaaddaasi halkan waxaa fadhiya beesha Jaamac Siyaad oo garaadku ugu horeeyo oqaashi nin garboodkii waxgaradkii iyo siyaasiyiintiiba ugu horeyn waxaanu tacsi u diraynaa dadkii labada dhinacba ka dhintay ilaahayna waxaan ka baryaynaa eheladoodii iyo dadkii ay ka dhasheen iyo dhammaanteen samir iyo iimaan inaga siiyo beeshu waxay ku baaqaysaa guud ahaan labada beeloodba nabadgelyo ugu baaqaysaa nabad aan mid dambe wax ka dhicin insha Allah biidmillaahi kariim bay ugu baaqaysaa waxaan leenahay walaalayaal dagaalka wiilba ku dhintay wiil kuma dhasho dee odayaashu waxay u ambabaxayaan oo halka ugu socdaan maanta inay labada beeloodba hor tagaan oo yiraahdaan nabadda qaata ciidamada kala qaada wax dambeeyay dhicin wixii ay isku haysaana soo gala dhiga qolo walayba insha Allah waxaan ka rajaynaynaa labada dhinacba in ay noo dhaga wadanaadaan raxiim halkan waftigan ambabaxaya ee nabadda uu ambabaxaya ee uu hogaaminayo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ee beesha Jaamac Siyaad waxay hore ugu baaqeen nabad dagaalka ka dhacay gumburka cagaare iyo qoriley nabad baanu kaga baaqnay haddana nabad baanu ku baaqaynaa waxaanu fariin u diraynaa beesha Cumar Maxamuud waxgaradkeedii iyo ismada horena nabad baanu idinku baaqnay dagaalka inaad joojisaan aaga dhulbaante gudihiisaana ciidanka kala baxdaan qolada bahar sameeyay nabad baanu ugu baaqaynaa labada dhinacba meeshaas dagaalkeedu soo noqnoqday in badan soo noqnoqday sida odayaasha hore ku baaqeen waxaan ku baaqaynaa nabadgeliyo cidda islaamka ee dariska la ahina inay ka soo qayb gasho nabadgelyada wax ka qaadato waxa meesha ku dhimanaya dad islaam weeye islaamkuna xilka saaran waxa weeye cidda kale inay nabadgelyada ka shaqeyso hadii kale dambi iyo dunuub ugu sugan inagoo aan waxba kala qabyaaladeen oo cidna xigsanayn nabadgelyada in laga shaqeeyo waajib inagu ah cid waliba kartideeda iyo tabarteeda inay ka soo qayb gasho insha Allah ta'ala sida anaga garaadku noo hogaaminayo cuqaashi iyo waxgaradku in reer waliba u soo baxo nabadgelyada uga shaqeeyo maamulada hareerahona marka hore Puntland iyo Somaliland dadka meesha isku dilayeen labadaba idinka xukuma waliba gobolka Sool waad kala xukuntaan meesha nabadgelyada ka soo qayb qaata waxaan u diraynaa koow baaq nabadeed iyo dhaganugaansho labada dhinacba ay u dhaganuglaadaan ciddii nabadda danaynaysa waxaan kala ku baaqaynaa xabad joojin inta haddaan ka gudbo dhibaatadani waa dhibaato 16 sanadood socotay maantana waxay maraysaa meel xaasxaasiya labada beelood ee Cumar Maxamuud iyo Bahar Same waxay ka kala dhasheen beelaha Saciid Harti iyo Maxamed Harti cid walba waa la yaqaanaa cidda xarigeeda ee budligaha u ah ee qabashadeeda waxaan ugu baaqayaa beesha Maxamed Harti cid ee la qabashada Cumar Maxamuud ee dhexdhexaad ka noqon karta inay fadhiga uga kacaan sidoo kale waxaan ugu baaqayaa beesha Saciid Harti ee qabashada beesha Bahar Same leh inay iyaguna fadhiga uga kacaan oo ay la isugu yimaado meeshii dhibaatadu ay ka dhacday saddexda maamulka dawlad deegaanka Itoobiya oo deegaanka xukuma iyo maamulka Puntland iyo maamulka Somaliland waxaan leeyahay waa nasiib daro meel saddex maamul u dhaxaysa in ay maalin walba dagaal uu ka socdo waxaanu leenahay labada arday ee walaalaha ah ee naga dhashay ee aan sina u kala maarmayn colaadda inta badan soo socotay ee aanu muddada badan ka qayb galnay ee aanu tiraba 4 jeer xaajada soo afjarnay wax ilaahay horta qoray weeye inay soo noqnoqoto waxaanu aad iyo aad uga xunnahay dhibka soo noqday ee labada qoys ee walaalaha ee Bahar Same Cumar Maxamed ku soo noqnoqday dagaalada socda aad baan uga xunnahay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacatayna ilaahay caafiyo maanta beeshu way baxaysaa
waxaanu tegaynaa haddii alla idmo qoriley waxaan uga gudbi doonaa magacley labada reerba waa la hadalay salaadiintooda waa la hadalay dad fara badan oo ka soo jeeda beelaweynta hartina insha Allah waa imaan doonaan waxa weeye Soomaalidu waxa taa geel duq baa loo hojaa annaga ugu horeeyna annaga xaajada isu dhigayna ummadda inta kale waxaanu suganaa inay naga daba timaado waxaanu dileenahay xabadda hal la joojiyo waynu soo imaanaynaa waa wada hadlaynaa labada daraf waa u gudbaynaa dhaqankii wax garadkiina waxa weeye waa la hadalay maamulada waxaan leeyahay waxna waa dhaqan waxna waa siyaasad weey wixii siyaasada waad wadaan wixii dhaqana dadka dhaqanka in lagu taageero oo lagu daba istaago oo nabadgelyadu haddii ay xumaato maamul jiri maayo iyana waxaan leeyahay hala soo taageero wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Farxaan Maxamed Caydiid Ariel TV Laascaanood